su'aalood iyo jawaabahooda oo aad u adag oo ku saabsan diinta islaamka iyo mawaadiicdeeda kala duwan. Isku day daawade inaad ka wada jawaabto kontonka su'aalood oo ku saabsan mawaadiicyo kala duwan oo ku saabsan diinta islaamka. In muddo ah wax muuqaala ma soo dhigin sanad iyo wax ka badan. Aad ayaana idinka raaligelinayaa arrintaasi. Muuqaalkana maanta muuqaal caadiya maaha oo waa konton su'aalood oo aad u adag oo ku saabsan diinta islaamka, waxaana ka jawaabi kara oo keliya qof diinta aad u yaqaana. fadlan walaal intaanan muuqaalka bilaabin qalin iyo buug soo qaado si aad u qorato su'aalaha aad garatay iyo kuwa aadan garan. Sidoo kale muuqaalka waad joojin kartaa intay su'aaluhu socdaan si aad ugu jawaabto. Aniga waxaan ku siinayaa 5 sekin. Marka haddii aad u baahan tahay waqti dheeraada, muuqaalka stop baa saari kartaa oo waad joojin kartaa. Su'aasha koowaad waa kuma saxaabiga keliya ee magaciisa si cad loogu sheegay Qur'aanka Kariimka? Jawaabtu waa Zayd bin Xaaritha radiyallahu canhu. Imise sujuudood ayaa ku dhex jira Qur'aanka Kariimka? 15 sujuudood. waa tee suuradda loogu magac daray mid ka mid a arkaanta islaamka? waa suuratul xaj. waa kuma saxaabigii markuu dhintay uu gariiray carshiga ilaahay subxaanahu wa tacaala? jawaabtu waa Sacad bin Mucaad radiyallahu canhu. waa kuma rasuulkii ugu horreeyey rususha uu ilaahay soo diray? jawaabtu waa Nebi Nuux calayhi salaam. waa kuma saxaabigii loo yaqiinay sirxayihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam? jawaabtu waa Xudayfa binu alyamaan. su'aasha 7 imise sano ayuu soo degayey Qur'aanka Kariimka? jawaabtu waa 23 sano. su'aasha 8 waa kuwee labada maalmood ee camalka aadamiga loo bandhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala toddobaad kasta? jawaabtu waa maalmaha Isniinta iyo Khamiista. su'aasha 9 waa tee suuradda keliya ee Qur'aanka ku jirta ee aan gebi ahaanba lahayn xarafka miim? waa suuratul Kawthar. su'aasha 10 waa kuma malaga u xilsaaran afuufista suurka marka qiyaamuhu dhacayo? jawaabtu waa Israafiil calayhi salaam. su'aasha 11 waxay ku leedahay daawade, kumuu ahaa khaliifkii koowaad ee islaamka kadib geeridii nebiga sala allahu calayhi wasalam? jawaabtu waa Abubakar Sidiiq. su'aasha 12 waa tuma haweeneydii ugu horreysay ee u shahiida diinta islaamka? jawaabtu waa Sumaya bintu Khayaad radiyallahu canha. su'aasha 13 waxay ku leedahay waxaad sheegtaa saxaabigii qori jiray Qur'aanka Kariimka sidoo kale mas-uul ka ahaa ururinta Qur'aanka Kariimka xilligii Abubakar Sidiiq? jawaabtu waa Zayd bin Thaabit radiyallahu canhu. su'aasha 14 imise jeer ayaa suuradda Ar-Raxmaan lagu soo celceliyey aayadda fabi'ayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan? jawaabtu waa 31 jeer. su-aasha 15
magaaladee ayuu ku dhashay nebi ibraahim calayhi salaam? jawaabtu waa magaalada baabil ee dalka ciraaq. su-aasha 16aad waa kuma saxaabigii uu nebiga sala allahu calayhi wasalam sheegay in malaa'igtu ay ka xishooto? jawaabtu waa cusmaan binu cafaan radiallaahu canhu. su-aasha 17aad su-aashani waxay ku leedahay waa kuma saxaabigii loo yaqiinay aaminkii ummaddan? jawaabtu waa abu cubayda radiallaahu canhu. su-aasha 18aad waxay ku leedahay daawade sheeg dagaalkii ugu horreeyey ee weynaa ee dhex maray muslimiinta iyo gaalada quraysh? jawaabtu waa dagaalka beder. su-aasha 19aad waxay ku leedahay daawade sheeg haweeney ilaahay ka barisay in uu jannada ugu dhiso guri sidoo kale ahayd xaaskii fircawn? jawaabtu waa aasiya bintu musaaxim. waxaad sheegtaa magacii loo yaqaanay seeftii caanka ahayd ee cali bin abi aalib radiallaahu canhu. jawaabtu waa dulfiqaar. su-aasha 21aad waxay ku leedahay sheeg nebigii ilaahay si toos ah ula hadlay? jawaabtu waa nebi muuse calayhi salaam. su-aasha 22aad waxay ku leedahay waa tee magaalada labaad ee ugu barakeysan diinta islaamka? jawaabtu waa madiina almunawara. su-aasha 23aad waxay ku leedahay daawade kumuu ahaa adeerka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee shahiiday dagaalkii uxud oo loo bixiyey libaaxii alle? jawaabtu waxay ku leedahay xamza binu cabdilmutalib radiallaahu canhu. su-aasha 24aad waxay ku leedahay daawade waa tee suuradda ugu horreysay ee si dhammaystiran mar qura u soo wada degtay? jawaabtu waa suuratulfaatixa. su-aasha 25aad baa soo gaarna daawade waxay ku leedahay su-aashani meeqa sana ayuu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ku noolaa magaalada madiina kadib markuu ka soo hijrooday magaalada maka? jawaabtu waa 10 sano. su-aasha 26aad waxay ku leedahay daawade waa tee suuradda u shafeeco qaadaysa qofka akhriya oo ka difaacaysa cadaabka qabriga? jawaabtu waa suuratulmulk. su-aasha 27aad waxay ku leedahay waa imisa tiirarka iimaanka ama arkaanul iimaan? jawaabtu waa 6 tiir ama waa 6 rugni. waa kuma saxaabiga wariyey axaadiista ugu badan diinta islaamka? waa kuma saxaabiga wariyey axaadiista ugu badan diinta islaamka? jawaabtu waa abu hurayra. magaciisana waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan binu saqar. su-aasha 29aad waxay ku leedahay daawade waxaad sheegtaa suurad ka hadashay dagaalka khandaq magaceeda? jawaabtu waa suuratul axzaab. su-aasha 30aad waxay ku leedahay daawade waa kuma malaga qaabilsan roobka iyo maciishada kownka? jawaabtu waa malaga loo yaqaano mika'iil. waxaan isaga ma keenayo ama koonka isaga ma maamulayo balse ilaahay baa u xil saartay
su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade waa tee suuradda keliya ee aan lagu bilaabin bisinka? jawaabtu waa suuratu tawba oo wax bisina laguma bilaabo. sababta aan lagu bilaabin wax bisina waxaad inoogu soo sheegtaa qaybta kommentiga haddii aad garanaysid. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade waa tee suuradda qur-aanka ee leh labada bisin? jawaabtu waa suuratu naml. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade yaa aasaasay oo dejiyey taariikhda hijriga? jawaabtu waa cumar bin khadaab radiallahu canhu. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade waxaa sheegtaa qofkii ugu horreeyey ee dulmi loo dilay dhulka dushiisa? jawaabtu waa haabiil, waxaana dilay walaalkiis qaabiil. su-aasha 38 waxay ku leedahay daawade waa tee suuradda ugu dheer qur-aanka kariimka? jawaabtu waa suuratu albaqara, aayadaheeduna waxay gaarayaan 286 aayadood. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade sheeg magaca hooyadii dhashay maryam nebi ciise ayeydiis? jawaabtu waa xanna bintu faaquud. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade waa kuma ninka qur-aanka lagu sheegay inuu lahaa hanti aad u badan oo furihiisa oo keliya ay rag xooggan la daalayeen qaadistiisa? jawaabtu waa qaaruun oo waxaa lagu sheegay suuratul-qisas qisadiisa. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade magaaladee ayuu ku dhashay imaamu shaafici? jawaabtu waa magaalada qaza ee dalka filistiin. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade sheeg saxaabigii indhoolka ahaa ee ay ku soo degtay suuratu cabasa? jawaabtu waa cabdullaahi binu abi maktuum radiallahu canhu. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade waa tuma gabadhii uu dhalay abuubakar ee nafteeda halis u gelisay inay cunto u geyso nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo aabbaheed godkii thawr? jawaabtu waa asmaa bintu abi bakar. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade waa imisa tirada asxaabtii loogu bishaareeyey jannada iyagoo adduunka jooga? jawaabtu waa 10 saxaabi. 10 saxaabi way ka badan yihiin asxaabtii loogu bishaareeyey jannada, balse 10kan saxaabi hal mar ayaa jannada loogu wada bishaareeyey oo hal xadiis ayuu nebiga sala allahu calayhi wasalam magacyadooda uu ku sheegay, waxaana loo yaqaanaa alcasharatu almubashiriina biljanna. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade waxaad sheegtaa suurad u dhiganta 3 meelood meel qur-aanka kariimka? jawaabtu waa suuratu likhlaas. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade waxaad sheegtaa doontii nebi nuux calayhi salaam halkii ay ku degtay markuu dhammaaday halaaggii la halaagayay qoomkiisii? jawaabtu waa buurta aljuudi. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade waxaad sheegtaa qabiilkii nebi saalix calayhi salaam loo diray? jawaabtu waa qowmu thamuud. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade waxaad sheegtaa saxaabigii ugu yaqaanay waxyaabaha xalaasha iyo waxyaabaha xaaraanta
diinta islaamka? jawaabtu waa Mucaad binu Jabal. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade muxuu ahaa magaca heshiiskii weynaa ee nabadeed ee dhex maray muslimiinta iyo Quraysh sanadkii 6aad ee hijriyada? jawaabtu waa heshiiskii Xudaybiya. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade sida ku xusan qur-aanka kariimka, waa kuma keligii taliyihii isku dayay inuu cirka koro isagoo bixiyey amar ah in loo dhiso daar aad u dheer si uu u soo fiiriyo Ilaahay? sidoo kale waxaa sheegtaa qofkii uu u xil saaray in uu dhiso dhismahaas dheer. jawaabtu waa boqorkaasi waxaa la oran jiray Fircoon, ninka uu u xil saarana waxaa la oran jiray Haamaan. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade haddii nin geeriyoodo isagoo ka tegay xaas, hooyo iyo hal wiil, waa imisa sahmiga ay xaasku ku leedahay dhaxalka ninkeeda sida ku xusan sharciga islaamka? jawaab: xaasku waxay leedahay 8 meelood meel hantida, maxaa yeelay ninka wuxuu ka tegay ilmo. su-aasha ku xigta waxay ku leedahay daawade waa imise xaddiga ugu yar ee dahabka ah ee marka qofka muslimka ah uu gaaro ay sako ku waajibayso inuu ka bixiyo? jawaabtu waa 85 garaam oo dahab ah. su-aasha ugu dambaysa waxay ku leedahay daawade waxaad sheegtaa 2 qabiil ama 2 ummad oo degnaan jiray dhulka inta aanan la abuurin bani aadanka iyo jinka? jawaabtu waa alxinnu iyo albinnu. daawade daliil cad kuma soo aroorin diinta islaamka inay jireen makhluuqaadkaas aan kuu sheegay, keliya waxaa sheegay qayb ka mid a culummada islaamka, balse xaqiiqada Ilaahay unbaa og inay jireen iyo in kale. aad ayaad u mahadsan tahay daawade. haddii aad muuqaalka ka soo gaartay ilaa iyo halkan, waxaad tahay qof aad u wanaagsan oo jeclay inuu aqoon korsado. haddii aad ka jawaabtay 40 su'aalood ilaa iyo 50, waxaad tahay qof qabiila oo diinta aad u yaqaana. haddii aad ka jawaabtay 25 ilaa iyo 39 su'aalood, waxaad tahay qof aqoon-yahana oo aqoontiisu ay dhexdhexaad tahay. haddii aad ka jawaabtay 24 su'aalood wixii ka hooseeya, waxaad tahay qof dadaal badan oo su'aalo fiican ka jawaabay. waxaan kula talinayaa inaad codsato muuqaalada noocan oo kale ah. muuqaalkeena halkaas ayuu ku eg yahay daawade. aad ayaad u mahadsantihiin. ha ilaawin daawade inaad muuqaalka like saarto, asxaabtana aad u sheer garayso, kanaalkana aad ku soo birto. waxaan gaarnay 10,000 oo saaxiib. ku soo bir daawade weydiin iyo warcelin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.